maalin wanaagsan. maanta waxaan rabaa dhacdooyinkii surdoonka mid kaloo ka mid a inaa halkan ku xuso. tani waxay dhacday muddadii u dhaxaysay 64 ilaa iyo 67. xilligaasoo ra-iisul wasaaraha waddanka uu ahaa cabdithaaba xaaji xuseen allahu naxariise, wasiirkiisii arrimaha gudahana uu ahaa soobe cabdiqaadir soobe. waxaa dhacday dhacdadan sida uu ku xusay buuggiisa taariikhda soomaaliya jenaraal jaamac maxamed qaalib oo ka sheekeynaya. wuxuu leeyahay, subaxban waxaan kusoo toosnay jaraa'idkii waddanka journaal ka mid a oo la oran jiray midnimo, sawirka gabar jiifta isbitaalka digfeer oo dhaawacyo x-raydii la saaray dhaawacyada jirkeeda ka muuqda ay ka muuqanayaan. journaalku marka waxay ciwaanka uu uga dhigayaa buu yiri, gabadhan dhibanaha ah waxaa sida u galay xubin ka tirsan safaaradda Ethiopia, weliba madaxii sirdoonka safaaradda Ethiopia muqdisho ku lahayd, magaciisuna ahaa Tawalde. arrintii waxay noqotay arrin aada u foolxun. jaamac maxamed qaalib markaas wuxuu ahaa madaxii hay-addii la oran jiray sirdoonka qaranka soomaaliyeed buu madax ka ahaa. arrintii markay soo baxday runtii foolxumay noqotay. anoo madaxii sirdoonka ahna ma hayo wax sida wax u dhaceen. marka waxaan isweydiiyey buu yidhi, yaa see gabadhan ay ugu soo baxday meesha. gabadha waxaa la tilmaamay inuu xiriir ka dhexeeyey ninkan Tawalde la yiraahdo. marka siyaasiyad ahaan inay journaalka ku soo baxdo arrin foolxun bay ahayd buu. waxa kaloo foolxumaa buu yidhi, gabadha sawirkeeda waxaa la barbar dhigay sawirka ninka diblomaasiga Etoobiyaanka oo Tawalde la yiraahdo. sawirka Tawalde marka waxa uu ooli karaa buu yidhi oo laga heli karaa dhowr meelood. meel waxa weeyuu yidhi, xubnaha siyaasiyiinta oo diblomaasiga dibadda markay yimaadaan sawir bay waxay dhigaan wasaaradda arrimaha dibadda. meeshaas sawirkiisa waa laga heli karay. sawir kale waxaa laga heli karay buu yidhi xafiiska iyaga sirdoonka qaranka na waa laga heli karay. sawir kale waxay noqon kartaa buu yidhi in isagoo ama gabadha ay gudbiyeen. marka anigu waxaan dareemayaa buu yidhi sawirkan inuu ka yimid xafiiska sirdoonka qaranka anigu madaxda u ah, aniguna aan war u hayn, oo shaqaalihii iiga hooseeyay ay arrinka fuliyeen ayagoo rabay inay ku cadaadiyaan ninkan diblomaasiga. waa siday asaga ay la tahay markuu qorahayo. laakiin waxay ahayd buu yidhi foolxuma haddii ay sidaa ku talagaleen inay ay sameeyaan ku soo baxo. safaaradda Ethiopia markay ogaatay journaalkii waddanka inuu ninkii diblomasigooda uu ku soo baxay, isla markiiba bedel bay ku dhufatay uu yidhi. teeda kale annagu waxaan ka baqaynay yidhi isla siyaasiyiinteeda ama diblomaasiyiinteeda joogo waddankooda inay sidaasoo kale kula dhaqmaan ama ku sameeyaan. arrintu markay halkaas ay ka baxday buu yidhi oo ninkiina la bedelay, hawshaasna ay sidaa u dhacday, baa waxaa lagu soo bedelay buu yidhi ninkii hore oo Tawalde aan lahaa nin ka sarreeya xagga aqoonta iyo xagga khibradda labadaba, oo weliba aan aada ula yaabnay buu yidhi. ninkaas marka ka sarreeya ma dhexgeli jirin buu yidhi gabdhaha Soomaalida ama xiriiradan sidii ninkii hore uu u raadin jiray. isagu iska ururshay buu yidhi. wuxuu saaxiib la noqday gabar Talyaani oo kalkaaliye caafimaad ka ahayd isbitaalka digfeer buu wuxuu u noqday bay xiriir yeesheen buu yidhi. markaan aragnay baan waxaan bilownay buu yidhi aniga asaga shakhsiyan asagoo madaxii ah ninkan iyo hawshiisa inaan dabagal ku samayno. dabagalkii waxay noqotay yidhi oo noogu fududaatay inaan safaaradda Ethiopia aan taleefankeeda tallaalana moogta. arrintii waxaan u tagay buu yidhi marka Soomaaliya markaas sanduuqii wadamadii barwaaqa sooranka la oran jiray baa nidaam isgaarsiin oo casri ah naloo keenay buu yidhi. oo ninka nidaamka madaxda u noqday oo loo tababaro yaqaan
waa nin aan saaxiib nahay oo nin aan aqaano noqdo yidhi cabdi haybe la yidhaahdo. cabdi haybaan u tago waxaan ku yidhi niyo waxaan kaa rabaa howlaha ninkaas baan u bogi weyna dhaqdhaqaaqyadiisi waa saa'id, waxaan rabnaa inaan wuxuu ku jira aan wax ka ogaano. se uga ogaanayna waxaan rabnaa inaan talaalano taleefanada safaaradda o dhan. cabdi haybe wuxuu yidhi qalabkan cusub aan haysano waan samayn karnaa, laakiin anigu kuma dhaqaaqi karo ilaa madaxda waddanku ay kugu soo fasaxaan maahan. nin wadani uu ahaa buu leeyahay cabdi siduu buugga ugu qoran. isla markiiba waxaan u gudbuu yiri wasiirka waxaa la oran jiray asaguna maxamuud cabdinuur, nin wuxuu ahaa buu yiri wadani ah. maxamuud cabdinuur baan la wadaagay arrintii, waxaan ku yidhi hawshaasaa ninkaasi dhaqdhaqaagiisa hawl naga haysataa, hawluuna ku jira, hawlihiina ma hayno, marka taleefanadii inaan tallaalanaan rabnaa. wasiir maxamed cabdinuur wuxuu yiri buu yiri niyow waa samayn ka dhan waa idin ogolahay, laakiin condition baa ku jira, waa in aydan tallaabooyin aydan qaadi karin baa ku jira. waa maxay? siyaasi soomaali ama dhegaysan ka dhan buu ama dowladda ah ama siyaasiyiinta waddanka ah. Soomaali arag meesha aad tiraahdeen oo safaaradda kaliya baad ku ekaan ka dhan line kale oo hawsha haddaan la idin fasaxo aad isticmaal kalo aan taa la idin fasaxay aan la ahayn ma fulin karaa. waxba kama qabaan inuu yiri waxaan u imid warqadii igu qoray baa maxamuud waxaan u keenay buu yiri cabdi haybe oo madaxa isgaarsiinta ahaa casriga oo waddanka laga furay. isla markiiba waxaan tallaalanay buu yiri taleefanadii. waxaan kaliya oonan tallaalan buu yiri safiirka oo madaxweynaha marti u ah taleefanadiisa qaaska ah maana tallaalan buu yiri. Soomaaliya labana gurigu ku lahaa, labana xafiiska u yaaleen buu. marka kuwa qaaska uu leeyahay maana tallaalan. hawshii waxaa noo soo baxday buu yiri haddaba mishinkii aan samayna tallaalashadii hawshii aan galnay waxaan ku ogaanay buu yiri in alla intii soomaalida ahayd oo la shaqaynaysay safaaradda warbixinta siinaysay waxay noqdeen buu yiri 7 ciidanka ah. 3 waxay noqdeen buu yiri ciidankii la oran jiray baarlamaanka booliiskii baarlamaanka la oran jiray bay noqdeen buu yiri 3. 4 waxay noqdeen buu yiri ciidankii xoogga dalka militariga. waxa uu weheliyay buu yiri xubin wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo gabar rayida iyadoo shaqaalaha dowladda ka tirsanayn. gabadha wuxuu yiri markii dambe waxaa guursaday xubnihii dowladda kacaanka xubin ka mid ah baa guursaday buuga ku qoray. laakiin dhibaatadu waxay naga timid buu yiri 7 qof oo ciidanka ay 7 waa xirrabay intii hawsha ku jirto oo waa xirrabay. markaan xirnay waxay u baahatay buu yiri dadkii waa in tallaabo laga qaado xarigooda, maxkamaddu waa in la geeyo, maxkamadda markii la geeyo qareenay qabsadayaan waa in la furo. waxaa noo soo baxday buu yiri in la ogaanayo inaan dhagaysanay safaaradda aan akhbaartana halkaa ka helnay caddaymaha aan ku markaan eedayna dadkan ku eedaynayna inay noqonayso wax hawshaasna hadday baxdana ay dembi aan gallay ay noqonayso. sidaa markaan ogaanay dadkii maxkamad maalan geyn buu yiri 7 qofba intii lagu helay hawshaba waa la sii daayay, laakiin shaqadii baa laga cayrshay, xaquuq aan siinayna ma jirin buu yiri dambe. soo arag hawshii mishinkii aan galnay sidaasaan kusoo afjarnay oo safaaradda Itoobiya iyo raggii la shaqayn jiray Soomaalida ah 7 ciidanka. marka hawshaasi siday tahay baan u fulinay waana ku guuleysanay, walow aanan tallaabooyinka ay mudnaayeen aan la marsiin dadkaas u shaqaynayay waddanka Soomaaliya. Itoobiyaanka markaan ka hadlayno iyo sirdoonadooda taas waxay ahayd muddada aan kuu sheegayay ahayd isla buuga qayb kaloo raacsiisan howlgalladii uu galay baa ku jirta. marka cajalkan xiga baan kusoo qaadanaya oo ku saabsan madaxweynihii cabdirashiid cali sharmaake. marka waxaan usoo laabanaya haddaba nimanka dadka soo galay Soomaaliya oo sirdoonka Itoobiyaanka u badnaa. waagii hore Soomaaliya baa la shaqayn jirtay, waagii dambese ayagiiba oo Soomaali noqday baa waddanka ku jiray. waxaan rabaa inaan ku daro arrintaa waxaa jiray
sagaashan iyo kowdii dadkii etoobiya ugu soo horgalaan ka mid ah. waxaa jiray nin aan addis ababa ku bartay, anigu ma aqoon, soomaaliya markuu jooga ma aqoon. ninkaasi wuxuu dadka soomaalida ah uga soo dhammayn jiray immigrationka etoobiya buu warqadaha loo baahday waxaasuu baasaboorka buu samayn jiray 1991. haddaba ninkaasi wuxuu ahaa nin ciidamada soomaaliya ka tirsan qaybta 54aad magaalada garowe jooga. reer garowe dhallinyaradii ahaydna ay taqaanay, soomaad arag. ninkaasi 1991 qamsa waxay ugu dhacday garowe markay ciidankii burburuu kusoo laabtay etoobiya. asagaa marka waxa uu sheekeeyey dhallinyaradii taqaanay oo aan isla deganayn, oo anigu ninka garowe kuma aqoon hore uma lahay, laakiin markaasaan baranhaya. wuxuu yidhi haddaba annaga oo kooxaba waxaa nooloo tababaray inaan soomaaliya galno. waxaan baranay uu yidhi afka soomaaliga. markii baranay waxaan baranay uu yidhi qabaa'ilkaan sheeganayno. soomaaliya markaan galay anigu ciidankaa qortay buu yidhi, ciidankii xoogga dalkaan qortay buu yidhi. ciidanka xoogga markaan qortay shaqadaydu waxay ahayd buu yidhi inaan wixii warbixinada aan gudbino. ciidanka markaan qortay oo soomaaliya ciidankeedii aan ka mid noqday, waxaan helay buu yidhi noloshii etoobiya aan ku haystay ka fiican. soomaad arag. markii noloshii aan helay waxaan ka fekeray buu yidhi war gudbin iyo warqaadis iyo noloshaan haysatid iyo meeshii aad ka timid, meesha maxaaba ku gelinaya? soomaali baad noqotay, ciidankaanaad ka tirsan tahay, noloshaanaad haysataa. wuxuu yidhi hawshii iyo mishinkii la ii dirayba maalintii baa iigu dambaysay. sidii baan ku soomaaliyoobay. 54 xeradaanan imid, garowaan imid, reer garow baan noqday ilaa iyo qamtu ay ugu dhacday garowe. anigu warbixinna ma dirin, ciidankiina sirdoonkii la i qoranay sidaasaa igu dambaysay. xubnihii anigu la ila qoray qaar baa laabtay, qaar baa jidka lagu qabtay, noloshoodii dambe war umahay buy. anigu sidaasaan ciidanka uga baxay, sirdoonkii uga baxay. haddana waxaan kusoo laabtay yiri waddankaygii, sidaasaana etoobiyanimadaydii kusoo ceshtay. anigu marka waagaas ma rumayn, waayo hadalka anagu noo sheegayay iyo dadkii yaqaanay iyo waxaasuu u sheegayay. laakiin markuu etoobiya kusoo laabtay isla markiiba wuxuu dhex galay systemka etoobiya. soomaaliya wasaaradii immigrationka etoobiya joogay ninkii 54aad garowe ka tirsanaa jiray. anigu magaciisa ma aqoon, laakiin muuqiisa waan aqaanay oo dhallinyaradii reer garowe yaqaanay oo aan wada deganayn buu hawsha uga sheekeynayay arrintaa aan sheegay. marka waxaa ku badnaa soomaaliya dad badan oo noocaasa ku jiray. nin oday oo aan madaxda waddanka ka mid ah, ciidanka ka mid ah, wuxuu ii sheegay janamada ugu sarreeya waddanka in guryahooda nimanka ka shaqayn jira ay noqdeen buu yidhi, niman caana oo weliba taliyaalka etoobiya markii dambe. marka xubintaas warbixinta ii sheegtay waa noolyahay sargaalka, oo dib baan kasoo sheegi doonaa. laakiin howlahan sirdoonka iyo dadka weliba soomaalidu waa dadka ugu fudud oo la dhexgeli karo. luqadda soomaaliga markaa baratid, qabiilna aad sheegatid, soomaali baa tahay moogta. waa qiso ka dhacday sanadkii hore bay ahayd. ninka oromoga oo soomaaliga sheegtay, ciisaha sheegtay, oo hargeysa telefishinka laga wareysanayay, soomaad arag. barnaamij gaaraan ka diyaarinaya, waayo waagii waan raadiyay akhbaartiisa. marka ninkaas gaar baa ugu hor, laakiin waxaa muhiimadu tahay sida dadku ay u dhoohan yihiin. maantadan aad arkaysid dad badan oo qabaa'ilkii intii la sheegto oranaya ninkan anagu naga tirsan, ninkan waa reer hebel moogto, ayagoona ogaan waxa uu yahay qofka ama aan la socon. waxaanana waxay bilaabmeen kacaankii ka hor, dowladdii 60kii ka hor, 40-yadii 50-yadii bay sirdoonka etoobiya shaqaysanayay, soomaad arag. marka tani waa cashar kaloo ka mid a buuggaas warbixintaas raadiya uu qoray allaha u naxariista jenaraal jaamac maxamed qaalib. marka barnaamijka intaasaan kusoo goobaya. wixii aad ka fahamteenna waa ila soo wadaagi kardhaan. mac salaama.